mar qura dhagahayga kuma soo dhicin nimanka xidhan iska daa wixii dhintay dhimaybe in tallaabo laga qaadi doono waxaynu arkaynay inuu beelaha Somaliland waliba beesha bariga Burco oo kale oo cod ka rabo horeyna cod badan u siisay inaanu deermankoogii haldoorka ahaa ee Faysal uu hormuudka ka yahay inaanu xataa inay xidhan yihiin inaanu soo hadal qaadin inuu waxaad leedahay arrimaha Faysal Cabdi Bootaan iyo maxaabiista kale ee xidhan mar qura kama hadal isagoo waliba bari jooga Cabdi Bootaan madaxweynaha agtiisa ku weyneen way ka muuqan lahayd oo ka hadli lahaa waladayada galbeedku ay ka fikirayaan mashaariico iyo horumar iyo maxaa maanta inoo soo socda bulsho ka fikiraysa goormo qorigu soo dhici doonaa goorma la idin soo weerari doonaa goormay balaayo dhici doontaa bulsho mashruuca loo furay nooca uu yahay adigu ma waxaad leedahay Gabiley iyo Hargeysa iyo gobolada galbeedkana mashruuciyaal lagu hadal hayaa barigii uu madaxweynuhu tagayna dagaal iyo qori baa lagu hadal hayaa baad u jeedaa markaa madaxweyne ku xigeenka u sharaxan in uu yiraahdo waxaan moodayay hada waan moodayay buu in gobolada bariga noocan inay yihiin oo la isoo soo dhaweynayo macnaheedu wuxuu ka aaminsan yahay fikirka ah meesha dagaal iyo dhiig iyo balaayo iyo qax iyo mushkilad mooyaane inaanay bariga wanaag iyo xilli laga sheekeeyo in dalka dagaal la geliyo laakiin waxa kaliya ee inoo horana ay tahay doorasho inaynu qabano dadkana midnimadiisa laga shaqeeyo ma hayno curado kale oo aynu ku weyno dagaal aan loo dhamayn dagaal bulsho uu kulmiye kala qayb kulan haboon daawadayaal waxa hadda barbarkayga fadhiya siyaasi huno oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka wareysan doono safarka madaxweynaha Somaliland uu ku marayo gobolada bariga Somaliland siyaasi seen la wada socono madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo goboladii bariga ay safar ku marayaan madaxweynuhu wuxuu sheegay in dagaal laga dhargin doono ragii dagaalka doonayay bal adigu arrimahaasi ka waran bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaan ku soo dhawaado su'aashaada madaxweynuhu wuxuu baxay safar uu sidaad ka dhawaajisay gobolada bariga ku marayo qodobadahoogii waxaan arkay saacin oo ku tilmaamaya gobolada bariga sida meel lama degaanba argagaxle oo kale saacin waxaan leeyahay gobolada bariga gobonimadooda markhaatibaad maanta ka tahay waxaad ka aaminsanayd inkastoo ay ceeb tahay madaxweyne ku xigeen dhan oo madaxweynenimo u tartamaya in uu dadkiisii qayb ka mida uu ku tilmaamo wax aan loo geli karin ama bahal ah 8 sano waliba isagoo wasiir ahaa taasi waa aragtida nimanka raba inay mar labaad wadanka hogaamiyaan bariga iyo galbeedka marka aynu isbarbar dhigno runtii gobonimo aad u ballaaran oo baaxad leh ay gobolada bariga oo in lagu bogaadiyo mudan ay muujiyeen xukuumadda kulmiye ee Muuse Gadwardeenka ka yahay haddii la qiimeeyo 7 sano ay xukunka hayeen 0.1 xataa gobolada bariga waxba ugamay qaban haddii caafimaad tahay haddii waxbarasho tahay haddii biyo tahay taa cagsigeeda waxa faraha loo geliyay dhiig iyo colaad sokeeye oo aan waxba looga qabanaynin xukuumaddu dadkii ay argagaxa iyo dagaalka iyo dhiigga iyo faraha u gelisay waxa ka muuqda soo dhaweyn iyo gobonimo aad u ballaaran kama dhigna in dadku ay soo dhaweeyaan Muuse Biixi iyo tiimka uu hogaaminayo inay jecel yihiin amba ay u codeynayaan bari ilaa galbeed Somaliland waxay u jihaysteen waa isbedel doon ma aha in Muuse la soo dhaweeyay iyo xubnaha la socda laakiin waxa la ilaalinayaa calanka tawxiid kale ee ay sitaan baa la soo dhaweeyay iyo midnimada gudaha jamhuuriyadda Somaliland laakiin maanta madaxweynuhu wuxuu dhax tagay dad aanu oran karin waxaasan idin qabtay wuxuu dhax tagay bulsho uu hagraday waxa uu dhax joogaa bulsho uu xagga goboladayada galbeedku ay ka fikirayaan mashaariico iyo horumar iyo maxaa maanta inoo soo socda bulsho ka fikiraysa goormo qorigu soo dhici doonaa goorma la idin soo weerari doonaa goormay balaayo dhici doontaa bulsho mashruuca loo furay nooca uu yahay bay maanta iyagoo dhaanteynaya ay dhax ararayaan waana ayaan daro marka adigu ma waxaad leedahay
gebile iyo hargeysa iyo gobollada galbeedkana mashruucyaa lagu hadal hayaa barigii uu madaxweynuhu tegayna dagaallo iyo qori baa lagu hadal hayaa baad ujeedaa markaa dabcan anigu waxaan ahay nimay madaxweynaha isku deegaan yihiin laakiin inaan isku deegaan ahay igama kaxaynayso inaan waaqaca jiraan ka hadlo anigu waan jecelahay inanka maanta ceerigaabo ku nool iyo inanka deegaankayga ku nool inanka gabiley ku nool inanka ku nool boorama iyo inanka burco ku nool inay xuquuq siman helaan taasaana wada deeqda cadaalad sinaan iyo wax wada lahaanshiya bulshada deeqda haddaan maanta ugu sacabtumo sadbursiimo uu madaxweyne deegaankayga ka soo jeegaa sameeyey berri ma dhaliili karo madaxweyne beri ka soo jeedaa haddii uu sadbursiimo sameeyo markaa waxaana wada deeqda cadaalad waxaana wada deeqda sinaan waxaana wada deeqda walaalnimo iyo wadajir iyo wixii manfac mashaariic iyo manaasiib qarankani helo in beriya galbeed loo sinaado markaa haddaan su-aashaa kugu celiyo ma waxaad leedahay halkan gebile iyo hargeysa waxaa lagu hadal hayaa mashaariic barigana qori baa lagu hadal hayaa baad leedahay haa dabcan sida uu guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah kaftanku waa runtoo la qaboojiyey uu maalin dhaweyd ka dhawaajiyey aragtiyaha bulshada waayo taa waxa caddayn buuxda kugu filan wasiirkii ganacsiga oo 8 sano muddo 7 sano ku dhow wasiir ahaa waliba ahna musharaxa ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka u sharaxan in uu yidho waxaan moodayey hadda waan moodayey buu in gobollada bariga noocan inay yihiin oo la isa soo dhaweynayo micnaha wuxuu ka aaminsan yahay fikirka ah meesha dagaal iyo dhiig iyo balaayo iyo qax iyo mushkilad mooyaane inaanay bariga wanaag iyo samaantooni aan ka jirin waayo waa waxa xisbiga kulmiye ka shaqeeyo amba isugu sheekayna ma istiraatiijiyadiisu tahay ayuu fikirkiisu mina la wadaagay wixii gudaha ku jiray umuu bulshada la soo hor istaagay oo run calooshiisa ku jirtun bay ahayd saajin baa markaa aad u jeedaa imika hadalladan aad u sheegaysaa ood leedahay gobollada bariga miyaanu tegin weli haa saajin way ka muuqatay oodweyne markii uu ka hadlayay inuu lahaa mabaan moodinba gobollada bariga in san laisku soo dhaweeyo iyo in nabadi ka jirta iyo waayo mabuun moodayn waxa ay aaminsan yihiin weyn qolada kulmiye markaa anagu maan moodayn tama qoladayda wadani waxaanu ka shaqaynaynaa ambaanu jecel lahay waa isku haynta bulshada iyo bulshadu inay cadaalad hesho inay sinaan hesho in bari iyo galbeed mashaariicaha iyo nabaddu waa mashruuca ugu weyn in bulshadu nabad marka la helo ayaa xasilooni iyo wanaag iyo horumar iyo mashruuc laga fikiraa madaxweynaha somalilan wuu hadlay arrimaha dagaalku ka hadlay wuxuu uhi ninkii dagaal doonaya waa laga dhargin doonaa dalkana doorasho iyo waxyaabo badan baa la hadal hayaa bal hadalkaa madaxweynaha arrimaha dagaalka ku saabsan sidee kula muuqdaadiga madaxweynuhu inuu dagaal ka sheekeynayo amba inuu ka sheekeeyey lama yahay waxaan u malaynaya wuxuu rabaa inuu ka gilgisho doorashado maanta foodkeena ugu soo haysa dagaalkii horee dhacay bishan aynu ku jirno waa agost 25keedii jab baa dhacay aynu ogeyn iyo guuldarro siyaasadeed oo maamulka iyo nidaamkiisu sabab u ahaa maxaabiis baa u xidhan hoggaan xumo iyo siyaasad xumo ka timiday maamulka muuse biixi iyo hoggaanka kulmiye weli wax qiraala kamay samayn adduunka marka qofka hoggaamiyahahi ama siyaasigahi ee damiirka lihi marka uu guuldarro siyaasadeed fooda geliyo bulshadiisa cafis buu weydiisa qiraalna ka muujiyaa waxa muuqatay hadal jees ahaa oo maxaabiista xidhan iyo intii dhimatay aan ka garaabayn inay yihiin bulsho inaga baxday iyo halboolayaal oo ahayd intaasi waxba maaha sideebuu inanka kale maanta dariiska xidhan ugu dhiiran kalaa walaalkiisii ka horreeyey isagoon meelna lagu sheegin amba geeridiisa ama maxbuuskiisii aanay xukuumaddu ka muujinin inay ka xun tahay inta xidhanna ka xun tahay intii dhimatayna ka xun tahay kuwan kale sideebaa dabka loo guri karaa madaxweynaha waxaan u soo jeedinayaa inuu doorashada qabto xilligeeda ku qabto haddii ilaahay soo celiyo wixii uu ka yeelayo ka yeelo maanta laakiin aanay u oolin xilli laga sheekeeyo in dalka dagaal la geliyo laakiin waxa keliya ee inoo horani ay tahay doorasho inaynu qabanno dadkana midnimadiisa laga shaqeeyo ma hayno curado kaloo aynu ku weyno dagaal aan loo dhammayn dagaal bulsho uu kulmiye kala qaybiyey la gelinayo dagaal dad aan waxba loo qaban la gelinayo dagaal aan ahayn mid qaran bulshada reer Soomaaliland wixii hore nabaradii inaynu daweynayno imika diyaar u nahay
diyaaru ma nihin dagaalka waxaynu ognahay rag badan oo mujaahidiina oo ugu horeeya Faysal Cabdi Bootaan iyo saraakiil la mid inay xidhan yihiin madaxweynaha waxaan filayay waa nin runtii horta aqoon buuxda u leh nimankii dalka u soo halgamay Faysal Cabdi Bootaan qof qarsoon ma ahayn saraakiil kale oo la mid ah jira waxaan filayay markii uu khudbadeynayay inuu khudbadiisa ku dari doono saraakiisha iyo sida uu uga xun yahay iyo wixii ka xukuumad ahaan uga qorshaysan soo deyntooda amba dee ka warhayntooda mar qura dhagahayga kuma soo dhicin nimanka xidhxidhan iska daa wixii dhintay dhimaybe in tallaabo laga qaadi doono waxaynu arkaynay inuu beelaha Somaliland waliba beesha bariga Burco oo kale oo cod ka rabo horeyna cod badan u siisay inaanu dee reermankoogii haldoorka ahaa ee Faysal uu hormuudka ka yahay inaanu xataa inay xidhan yihiin inaanu soo hadal qaadin waxaa loo sameeyey ciidan la yidhaahdo SSB oo beel keliya ku kooban iyadoo ayaan darro aynu ogeyn qaranka in hubka dhigis lagu sameeyey beelaad in dib loo hubeeyo beeshii waxaynu arkaynay inuu ogeyn in miisaaniyadda wixii madaxweynuhu ma waxaad leedahay arrimaha Faysal Cabdi Bootaan iyo maxaabiista kale ee xidhan mar qura kama hadal isagoo waliba bari jooga mar qura kama hadal de waynu arki lahayn warbaahintu way duubaysay laakiin issues weyn buu ahaa inuu ka hadlo way ahayd laakiin waxay muujinaysaa inaan agtiisa ku weynayn Faysal Cabdi Bootaan madaxweynaha agtiisa ku weynayn way ka muuqan lahayd oo ka hadli lahaa hadduu ku weyn yahay laakiin annaga qaran ahaan buu nagu weyn yahay xisbi ahaan buu nagu weyn yahay Somalilandna meel weyn buu ugu yaalaa waa haliyey qaran insha Allah waan rajeynayno dib xorriyadiisa u helo